xafladan ilaaheen maanta isugu keenay waxay ku magacaaban tahay xaflad tanaday ku magacaaban waxa la yiri xeero ninka sida la yaqaan ninka staasido ma garanaysaa waxaan leeyahay waxaanu isugu nimid nabadgeliyo dhul badan baa isaga nimid bandiiradley ma aha galdogob ma aha golol baa laga yimid koonfur baa laga yimid waxa laga yimid meel kasta oo Soomaaliya degan tahay rag baa ka yimid nabadda daraadid u yimid ilaahu noo aqbal baan leen ilaahu naga celin baan leen taasna intaasaan leeyahay midda xigta waxaan leeyahay aan iscafino waxaan rabaa dhowr shay oo aan isleeyahay diin ahaanna ah shirkeennan way kabayaan dhowrkaa shay waxaa kow ka ah inaynu ka run sheegno wixii aynu ku heshiinay oo inteenna hoolkaa fadhida iyo intii barnaamijkan lug ku yeelatay teerraga iyo bandiiradla iyo guldogob oo maalin ka qayb qashay qof kastaale waa inay asaga nabadda daacad ka tahay ilaahay baa la yaa ayuhaaladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad u leedihiin waxaydan samaynayn marka innagu hadday run inaga noqoto inta hawsha wadda inta warkeennu gaarana insha allahu tacaala way ku qanci doontaa qodobka labaad oo isleey waxbuu tarayaa waxa weeye waa dhibaatadii dhacday ee dhimashada lahayd ee dhaca lahayd ee dhaawaca lahayd ee barakicinta lahayd ee kanixinta lahayd in wanaag laga geeyo nabigu waa atbici sayyi'ata alxasanata tamxuha wuxuu yidhi xumaanta waxaad raacisaa wanaag way tirtiraysaaye qur-aankuna ina alxasanaati yudhibna sayyi'aati yacni wanaag yaalaha la sameeyahay xumaanyaalihii bay waxa weeyaan tirtirayaan marka meeshii colaadda nabadaynu u beddelno dhimashadii iyo dhiigga aynu magsin u beddelno kala cararkii weradagaynu u beddelno waxaa tirtirmaya taariikhda dhibta badan ee ina soo madhay ee annagu ku dhalannay ilmahaynu ku dhasheen halkaasayna ku istaagaysa qodobka saddexaad oon isleeyahay way u baahan tahay waxa weeye asiilatul arxaam dadkii markay isu yimaadeen la kala celin jiray bal magacyahooda la kala qarin jiray waxay noqdeen wiil iyo abtigii wiil iyo inaabreedkii wiil iyo seedigii wiil iyo sodoh anigoo u qaba beesha sacad gaar ahaan guud ahaanna beelaha hawiye inaanan wax qaraabaa ku lahayn oo marka laga reebo awowgaygii hooyaday dhalay hooyadeed baa waxay ahayd cidahaas ma ahane baa raggii waxaan ka helay nin adeerkay ah oo ay aabbahay ilma habreed yihiin adeeradan weliba aad baan ugu baahnay adeero badan ma lihi waan weydiiyey xaggee adeer joogtay meelahan yallaan waalay baan joogay bii intii hawshaas socotay aniga hooyaday iima sheegin maxaa yeelay wax kalaa laysu sheegi jiray marka qaraabada intaa leeg ha la xariiriyo oo ha la soo dhoweeyo oo qabaa'il badanoo meeshan fadhiya bay bareerahan dhaleen bahawiyo qolada la yidhaahdo baan waxaan weydiiyey allah u naxariistay cuursha waxaan idhi adeer abtiyow nimanka waadna kala taqannay habarta bahawiyana dhashee la sheegaay ma habar jidhaa mise habaraan jirin maya cadday cismaan cabdi qoorgaa baa la yidhahdaa buu yidhi markii hadda raggii la helay waxaa la helay qolatii warabtiyaal baa u nahaye bahawiyi iyo arkay marka dadka ayagaa waxay u baahan yihiin qaraabada sidaa iyada in loo xariiriyo qodobka kaloonu isleeyahay nabadda waxtar buu u yahay oo diinigaa waxa weeye mala fiican xusni danni inaan samayno dad badan baa waxay fiirinayaan taariikhdii mudawada la soo maray waxayna leeyihiin armaan sidaan sacabkaan wax ku hagaagin innagu ilaahay aynu wax badan ka rajayno ilaahay wuxuu yidhi addoonkaygu wuxuu iga rajeeyo ayuu iga helayaa xifladan diyaarkan nimcadan derinta noo taalla xifladan diyaarkan nimcadan derinta noo taalla dadaalkiya walaalnimada iyo daacadiya qayrkan dadaalkiya walaalnimadan iyo daacadiya qayrkan deeqdan reer xirsiba bixiyay ee ducaha loo reebo deeqdan reer xirsiba bixiyay ee ducaha loo reebo
waa dad ganacsataa geelna badan dooma iibsadaye waa dad ganacsataa geelna badan dooma iibsadaye maraakiibna way soo dejaan dunida guudkeeda maraakiibna way soo dejaan dunida guudkeeda dul lamida adduunyada ma arag daayin abidkeeye dul lamida adduunyada ma arag daayin abidkeeye waxba gabaguyo ila durgina waxaan ku soo duubay xirsi dunida caanbow ka yahe duca ha loo reebo dadkoo idil dhammaan wada sacbiya donoqya waayeelay سلام بعد قد إلهي ومهد إسكالي وحان إلهي ومهد علينا إلهي إسوك يكيني ماشان يمالي كهريني نرقرسيي إنان كبحنو وحي حما إنان كشلينو وحفي عنا أن أقدبنو mahaddaas ilaahay baa iskale ilaahay baanan uga mahadinaynaa waxaan kaleeto oo aan mahad u celinayaa horta oday hadal buu isaga darsadaa ilaahay raxmaddiisa lagama quusto magacyada kala duwan iyo nasabyada kala duwan ee lagu fadhiyo ayaan ku salaamayaa dhammaan sharafka halkaa fadhiya marka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ilaahay baa mahadsan inoo suuro geliyey munaasabadan iyo kuwii ka horreeyey oo aynaan tirin karin khayrka iyo wanaagga iyo abaalka iyo shukriga uu inaga mudan yahay waxaa kaloo mahadsan intaan sidaan horey u yiri mar kale waqtigu waa dhammaaday waqti gaaban la gaaban hadalkiisa waxaan qabaa wixii la yiri oo wanaag ahaa oo sharaf ahaa oo ammaan ahaa oo mudan ahaa oo meesha laga yiri oo aan la qabo ama aan rumaysnahay wixii aan oran lahaa ama qabayna ah baan la qabaa murwooyin iyo mudanayaal aad iyo aad baan inii salaamaynaa mahad baan inii celinaynaa dadkii halkan ka soo qayb galay iyo kuwa bannaanka jira iyo kuwa gobollada jiraba aad iyo aad baan u mahadsanayna way inii mahad celinaynaa dadka halkan ka soo qayb galay oo daalay oo waqtigii ku dhammeeyey aad iyo aad baan u mahadsantihiin 114 waynu ku salaamaynaa salaanka bacdi anugu hadda waxaa laygu dhiibay inaan soo xiro ee layguma dhiibin inaan wax sheego walaalayaal meeshaan waxaa ka dhacay gogasha halkan lagu dhigay reexir sumuumin waxay u dhigeen magac tanaday ku dhigeen hadalkaas ma maqlaysaan magac tanaday ku dhigeen waxay u dhigeen beesha sacad uma ay dhigin ayagu kaliya iskuma koobin oo ma oran reexir sumuumin kaliya iska leh gogashaan tanada iska leh ayagu kharashkay bixiyeen magac tanaday bay ku dhigeen waxaan ka codsanaynaa wixii halkaa lagu gaaray oo intaas aynu ku daallay oo haddii lahaydna waqti ku bixinnay in laga dhabeeyo inaan fuulno waxaan ina ragow inka codsanaynaa inayna hawsha halkaas keentay ka har inayna ka dhiginina keentay ka har ha ka dhiginina waa inaan meeshii dhibtu ka imaan jirtay oo ka soo faafi jirtay waa in la aadaa oo dad la dejiyaa annagu haddaan gabdhihii nahay gabdhihii kaalin ka qaada lahaa ee miyiga in la wareegi lahaa ee tuulooyinka in la wacyigeli lahaa ee meel kasta in la seexan lahaa waa naga diyaar horay baana soo istaajinaynaa haddaad diyaar tihiin gabdhaha ayagu waxaan diyaar u nahay inaan in la shaqayno inaan gacan xoogla ka qaadanno dal iyo dibad gabdhuhu meelay joogaanba gabdhuhu aniga mas-uulkii soo saareen waxaana diyaar u nahay inaan kaalin xoogla ka qaadanno naf iyo maalba diyaar baa inla nahay inaynu duldhigno waxaana keenaynaa haddaad diyaar tihiin guddi gabdhaha oo inla shaqeeya oo wax allaala waxaad keentaanba horay inla qaadanahaya
ayaan keenaynaa oo diyaar naga ah waxaan codsanaynaa oo mar labaad codsanaynaa oo mar saddexaad codsanaynaa inaan guryaha la kala aadin ما شاء الله بعد المرتقات هل كان وحا ujeedaan waa gabdhihii beesha Sacad Siciid iyo gabdhihii guud leelkase hadana gaar ahaan gabdhihii reer Xirsi Muumin ayaa waxay ku martiqaadeen oo xalfadan galabta ugu sameeyeen gabdhihii beesha Sacad Siciid ayagoo doonaya farxadda walaalahood inay la qaybsadaan gaar ahaan iyo guud ahaanba annagoo ah gabdhaha beesha tanade gaar ahaan reer Xirsi Muumin waxaan rabnaa in hadiyadahan ay naga gudoomaan gabdhaha walaalaheena ee beesha Sacad Siciid waxaan salaamay dhammaan gabdhaha beesha la ilkase ee halkan fadhiya qaasatan beesha quruxda badan ee maanta noo sameysay martiqaadkan iyo hadiyadan ee reer Xirsi Muumin uu ka soo jeedo xildhibaankayga qaaliga xildhibaan Daahir uu ka soo jeedo haddaan nahay gabdhihii Sacad waa idinka gudoonay hadiyadii qaaliga ahayd ee aad ugu tala gasheen gabdhaha walaalihiina ee beesha Sacad Siciid